degmada Ibrahim Koodbuur ayaa ololaha ay ku banaynayaan wadooyinka xidhxidhan ka fuliyey xaafadda badda cas ee degmada Ibrahim Koodbuur. Ololahani ay dowladda hoose qaaday gaar ahaan waaxda Koodbuur ayaa waxa ay ku baneeyeen ugu yaraan 5 wado oo uu xidhay geedka loo yaqaano garanwaaga isla markaana dhibaato ku haya xaafaddaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah guddiga horumarinta degmada Ibrahim Koodbuur iyo qaar ka mid ah dadweynaha ku nool xaafadda badda cas waxaana ay soo dhaweeyeen ololahani ay dowladda hoose saaka ka fulisay xaafaddaasi. waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa gudoomiye Subeer oo markii naloo soo bedelay isla markiiba ka jawaabay maaragtay dalabkayagii. dadweynaha xaafadda degan waxaan ka codsanaynaa inay soo dhaweeyaan waxqabadka dowladda hoose iyo wada banaynta oo waxqabadkeenu inta badan sugaynay. geesta kale waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta degmada Ibrahim Koodbuur oo uu horkacayo gudoomiyaha degmada Ibrahim Koodbuur Maxamed Salaan Maxamed Subeer Maxamed Iimaan Maxamed gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee degmada Ibrahim Koodbuur Sahra Maxamuud Nuur gudoomiye ku-xigeenka labaad ee degmadaasi Ibrahim Koodbuur iyo xildhibaan Maxamed Amiir Cismaan oo ku magac dheer Sikaawi kana mid ah golaha deegaanka caasimadda Somaliland Hargeysa. xaafadda waxaan doonaynaa inaan wax badan ka noqono insha Allah laakiin wadooyin badan marsaan ka furo garwaaya waxaa ka soo bixi doona wadooyinka isu dhigayo jilcada oo isu dhigi doona in waddo laamiya la mariyo finishka laftiisa waxbaa laga qabanayaa toddobaadkii gudihiisa markaa waxaan leeyahay xaafadda guralla guddigii xaafadduna nagala shaqaynaysay guddigii horumarinta nagala shaqaynaysay si wanaagsan bayna hawsha insha Allah muddada dhexdeeda guulaha uma laga shaqayn doonaa. muhiimadda ugu weyn ee ka dambaysa arrinkan uu yahay kadib markii baahi weyn loo qabay in la helo wadooyin muhiim ah oo dhex mara xaafadaha degmada Ibrahim Koodbuur ka furan tahay tanina ayayba furan tahay inaanu banayno dhammaan wadooyinka xiran ee degmada Ibrahim Koodbuur. waxaa tartami doona degmooyinka hargeysa waxaan jecelahay Koodbuur inaan sidii ay liininka u ahayd oo degmooyinka liininka ugu ahayd inaan laga qaadin. waxaan kalan doonayaa maanta inaan halkan aad iyo aad uga mahadnaqo maamulka cusub hawshaasi siday u bedeli geesta kale waxa ay mas-uuliyiinta degmada Ibrahim Koodbuur sidoo kale ay ololaha ay ku nadiifinayaan ay ka fuliyeen garoonka kubadda cagta ee dhaliinta ee xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa. garoonkan oo dib u habeyn lagu samayn doono dhowaan isla markaana la dhigi doono rooga cagaaran ayaa waxaa halkaasi hadal ka jeediyey mas-uuliyiinta degmada Ibrahim Koodbuur iyo sidoo kale xildhibaanka golaha deegaanka Maxamed Amiir Cismaan Sikaawi. oo garoonka dhalinta saakin gareer taw yahay si isku sinto meel biyo jareen loo hagaajiyo. waxaan jecel lahay markaan guddiga horumarinta degmada iyo dowladda hoose aan isla kaashano in doog la dhigi doono insha Allah bilmaa karin ayaan ku rajo weynahay. marka waanu u salaxnay waxaan insha Allah wali doonaa oo loo dagaalami doonaa. waxaanu baranaynay gareerkii insha Allah biilaahay gareer wixii baahiya ee degmadu qabto waan dhamaystiraynaa. talagalku waxa weeyaan garoonka inuu noqdo garoon casriyeysan isla markaana roobkiisiina dhammaan agabyadiisa ciyaaruhu ay u dhamaystirayeen talagalka waxaa weeyaan haddii la hayraa dadkana waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dhalinyarada xaafadda Jigjigeer ee garoonkaasi. waxaan halkan maanta aan u hambaleynayaa gudoomiyaha cusub Subeer carabta maanta arkaysaa garoonka joogta waa maalintii koobaad ee forever inuu garoonkaas jiro inoo timaado. waxaan kaloo u mahadnaqayaa maalinka Garax Mooge oo gudoomiye